saaka waxaan soo jeedinaynaa magacyada guddidii muddo kordhinta seexda baynu ku fadhinaa inta sidaanu soo jeedinay ogoli gacantaas waxayna soo gaadhay qoraal lagu soo hagaajiyey guddoonka golaha guurtida oo ka yimi madaxweynaha saaka waxaan soo jeedinaynaa magacyada guddidii muddo kordhinta golaha wakiilada magacay guuleed baa la yiraahdaa guddoon waxaan ku weydiin lahaa Soomaaliland dhibaatooyinkooda ugu waaweyn xagga dimuqraadiyadda waxa weeye kororsiimada qof mudalla cayima la doortay dabadeedna iska sii joogay adigan haddaan khaldanayn 2005 baa gobolka saaxil lagaaga soo doortay muddo 5 sano haddana waxay dhaaftay 10 sano in ka badan hadiiba madaxweyne lagu doorto ma nolol damaanad qaadi karay inta lagu doortay inaanad ka badsan cudurdaarku wuxuu doonaha noqday ma ballan qaadaysaa inaanad mar dambe muddo kordhin samaynin meel ku qoracaawa waxaan ballan qaadaynaa xisbiga waddani aanu kaga duwanaan doonaa inaan muddo kordhis dambe imanin waddanka 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 aad baad mahadsantahay waynu codaynaynaa sidii dhaqanku ahaan jiray hadii yeedhinaynaa marka hore waynu u codaynay naasir sidaa uu sheegay guddoomiyaha goluhu waxayna soo gaadhay qoraal lagu soo hagaajiyey guddoonka golaha guurtida oo ka yimi madaxweynaha 18 bishii Afraad 2026 ujeedadiisuna tahay qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka sida ay tahay ujeedadu inaynu talo ka soo jeedino go'aano ka gaadhno mudanayaal markii aan arkay sida ku cad qodobka 24aad firqadiisa saddexaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland haddii doorashada golaha wakiiladu ku qabsoomi weydo duruufo adag awgood golaha wakiilada ee xilka haya ayaa sii wadaya xilkiisa ilaa ay ka dhamaanayaan duruuftaas lagana qabanayo doorasho lagu soo dooranayo golo cusub duruufaha adagi waxa ay ka koobnaan karaan dagaal baahsan xasilooni darro gudaha ah aafad dabiici ah oo culus sida dhulgariir cudurro faafa iyo abaaro culus waxaana duruufahaasi qiimeynaya isla markaasna go'aanka dambays ah ka gaaraya golaha guurtida kadib marka ay xukuumaddu soo jeedintaas u soo gudbiso soo jeedintu waa qoraalka uu madaxweynuhu inoo soo gudbiyey markii aan arkay sida ku cad qodobka 6 firqadiisa afraad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer nambar 19/323 haddii ay caddaato in doorashooyinka madaxtooyada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanku aanay ku qabsoomi karin wakhtigii loo asteeyey sabab farsamo awgood ama arrimo kale oo ka baxsan xaaladaha ku xusan qodobka 8 iyo qodobka 24aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa go'aanka ku saabsan muddada kordhinta xilhaynta ka gaaraya go'aan golaha guurtida kadib marka ay helaan soo jeedinta madaxweynaha oo ay ku lifaaqan tahay tala soo jeedinta komishanka doorashooyinka qaranka qoraalku madaxweynuhu soo gudbiyay waa kan tala soo jeedintii komishankuna waa qoraalkan kale ee ku lifaaqan qoraalka markii aan arkay sida ku cad qodobka 46aad firqadiisa labaad ee wax ka beddelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19/323 in farsamo ahaan laga hirgeliyo in diiwaangelinta codbixiyayaashu noqoto mid joogto ah isla markaana laga heli karo degmo kasta komishanka doorashooyinka qaranku waxa waajib ku ah inuu qabto diiwaangelinta codbixiyayaasha doorasho kasta ugu yaraan 6 bilood ka hor markii aan arkay qoraalka komishanka doorashooyinka qaranka ee sumadiisu tahay komishanka doorashooyinka qaranka ka
/6/286/2 kuna taariikhaysan 31 bishii koowaad 2026 kuna saabsan qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba waxaan halkan idinku soo gudbinayaa talo soo jeedinta Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo ku lifaaqan qoraalkan kuna saabsan qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland si aad uga gudataan waajibkiina dastuuriga ah una fulisaan mas'uuliyadda idinka saaran iyadoo la waafajinayo qodobka 24aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobka 6aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka qaranka xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyayaasha xeer lambar 19/2023 Allah mahadle warqadii komishanka ee ku lifaaqnayd ay soo gudbiyeenna waa taa lagu xusay gudaha inaga ka go'aan gaarayna go'aan ahaan sida waajibku yahay warqadii waa taa tii madaxweynuhu idoo soo gudbiyay intaa kadib shirkidoonku wuxuu isla qaatay golahana uu soo jeedinayaa in la magacaabo gudidan sida caadadu ahayd in hore u sameyn jirnay golaha guurtidu wuxuu gudi u saaray ka soo tala bixisa muddo kordhinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo ka kooban gudidaasi 25 xubnood oo kala ah 21 mudane iyo shirkidoonka oo uu weheliyo xogayaha guud ee golaha liiska gudida Aidiid Cabdi Maxamed Saciid Cabdullaahi Yasir Aidiid Cabdi Maxamed Saciid Cabdullaahi Yasir Ali Maxamed Huruusi Awil Cabdullaahi Aidiid Ahmed Nuur Cali Aadan Ismaaciil Saleebaan Yuusuf Ahmed Xaaji Cabdi Xuseen Maxamed Maxamuud Jaamac Bakar Maxamed Maxamuud Diiriye Cabdiraxmaan Ismaan Jaamac Cabdicasiis Maxamed Gaaxluug Cabdiraxmaan Qowdhan Maxamed Cabdirasaaq Haybe Xuseen Dayib Xasan Axmed Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Yuusuf Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Axmed Araaye Qaasim Xuseen Madar Jirde Saciid Maxamed xubnood oo waajibkooda laga bilaabo maanta bilaabi doona hadii Ilaahay raa lixda baynu ku fadhina inta sidaan soo jeedinay oo goli gacantaada qaali noqo qarnabo haye lixda baynu ku fadhinaa 43 waa ogolaad 16 waa diiday أنا ما عبيدين ساسو كوان صحي وبالله توفيق ما تيتاه هو كاتو قد دو عفدو انتينا كلا فتح بات